بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلكني وتيفيga caalamiga ah Universal barnaamijka faqadada ciyaaraha waxaan ku suganahay koonfurta magaalada London waxaan la joogaa gabagabadii bishii barakaysan ee Ramadaan iyo ciidii oo inagu soo foodaysa waxa lagu qabtay tartan aad u weyn oo loogu magac daray koobka Ramadaanka iyadoo ay ka soo qayb galeen sanadkan 8 kooxood oo ka kala socota xaafadda Streatham iyo koonfurta magaalada London koobkan waxa si wada jira u soo abaabulay kooxda Muqdisho Football Club iyo ururka Somali Employment and Educational Development oo af Soomaali lagu yiraahdo ururka Soomaaliyeed ee horumarinta shaqada iyo waxbarashada intay socdeen ciyaarahan ilaa iyo bilowgii bisha barakaysan Ramadaan waxa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo kala degan caasimadda ka kala degan xaafadaha ay ka kooban tahay caasimadda waddanka Ingiriiska maanta waxa xal isugu yimid ciyaartii ugu dambeysay ee finalka oo mar dhow aan daawan doono In the past don't matter now. What matters what we got. It's up to us about tomorrow. Pray for the better, hope for the better.
waxaa ila taagan saa ujeedaan legend abalisha oo degan xaafadda isla markaana qabanqaabada koobkan gacan ka geystay abalisha marka ugu horeysa bal qaabka loo soo abaabulay iyo kooxaha ka soo qayb galay bal sanadkan waxa nooga sheegay naasir bishil ramadaan barakaysan inaan 8 koox oo wadanka ka dhisan Streetham ilaa ina waaxigeeda Sud-Westiga runtiina bisha ramadaan ayaa ugu talagalnay laacibkii igu weynaa Maxamed Ismaaciil ayaa gudoomiye ka ahaa iyo Saciid Cirow runtii labadoodana iga maqan maanta ana booskoodi joogo marka waxaan rajaynaynaa in ciyaartan noogu dhamaato si sharaf leh maanta gabagabada ay tahay semifinal ay finalka inaan qaban Cabdinaasir wallahi ciyaar fiican ay ahayd aniga waxaan watay kooxda oo Lewisham marka nasiib wanaag waan laga badiyay marka dib ma laha next year insha Allah laakiin muhiimaddu waxa waaye ramadaanka isdhexgalka absolutely laacibin badan aan bartay kabtanka ka mid ee marka muhiimadda sportska waxaa isbarasho iyo wax wanaagsan marka insha Allah next year inuu saano kale ay noqoto sida ku aragtan garoonka waxa soo buuxiyay dhalinyaro Soomaali aad u fara badan oo ka kala yimid nawaaxiga magaalada London si ay u daawadaan ciyaarahan aadeen u xiiso badan yihiin runtii meesha lagu ciyaaray waxa lagu ciyaarayaa 6 iyo hal player 6 ciyaaryahan dhaxda ah iyo hal ciyaaryahan oo boortiri ee lagu ciyaaraya marka ciyaartii hadda ugu dambeysay waxa wada ciyaaray kooxaha Muqdisho iyo Halgan waxaana soo baxaysa ku artay Muqdisho waxaan sugnaaba waa semifinalkii ugu dambeeyay finalkii oo aad ka daawan doontaan insha Allah Universal TV ciyaarahan ay soo qaban qaabiyeen Muqdisho Football Club iyo ururka horumarinta ee ka soo qayb galeen 8 kooxood aad iyo aad ayaan Cabdinaasir ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galo ayadoo gabagabadii ciyaarta la marayo waxaanan jeclahay in aan dhalinyarada ku gubaabiyo sanadka soo socda midaan mid ka weyn inay noo qabtaan maadaama dad aad u fara badan oo ciyaartooy ay ku nool yihiin South London xildhibaan cabdidheeg waxaa lagu doortay afhayeenka guddiga olimbikada qaranka Soomaaliyeed waxaan isla joognay waddanka Sweden meel walba sportia waxa tahay shakhsi sporti ah maxaa idinkaga baahan yahay olimbikada haddaad tihiin sidaad u heli lahaydeen dhalinyaro saan oo kale ah oo adduun weynaha kala jooga Soomaaliya anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan TV-ga Universal Cabdinaasir waxaan rabaa hadda maadaama gudoomiyaha olombikada Tarabi iyo xogeeyaha iyo ay hadeertaan qabanqaabo aad u weyn ay wadaan oo shir aan ku soo galnay Sweden in active laga dhigo xiriirada la kordhiyo dhalinyarada sida loo aroorin lahaa oo loo gaarsiin lahaa horumar waxaa kaloo aan kula kulmay garoonka legend basketball Soomaaliya macalinka guddiga olimbikada qaranka Soomaaliyeed waxaa xasuustaan sanadkii hore ciyaarihii olimbikada ee London macalin Barajab ku soo dhawow mar labaad London bal ka waran Ramadaan Kariim Ciid Mubaarak ka waran ciyaarahan ka socda South London bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan leeyahay Ramadaan Kariim ramadaankiisa insha Allah annagoo caafimaad iyo bashbash barwaaqayno Ilaahay isku keeno sidii sanadkii hore ramadaankii hore aan isku aragnay aad iyo aad maartay reer London ma abaalkooda ma gudi karno si fiican ay garabkeen istaageen hawshay noo qabteen hadeerna maartay nasiib waxaan u helay inaan mar labaad imaado London isla markaasna leegu casumo maanta tartankan oo finalska ah oo maartay ururada ama kooxaha abaabulay Muqdisho Club iyo kooxda la yiraahdo Set aan aad ugu faraxsanahay maatinka maanta aan dadkan la kulmay waana wax kordhinaysa horumarinta isboortiga Soomaaliya oo loo baahan yahay maartay in ay jiraan dhalinyaro isboorti ah ciyaarta event kasta oo sport ah sida kubadda cagta kubadda kolayga laliska everything aad baan ugu faraxsanahay jaaliyadda iyo dadkii soo abaabulay maartay munaasabadan ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo runtii sanadkii hore waxay nagu reebtay nostalgic ayaa lagu dhaha luqadda ingiriiska waxaan la iloobi karin nagu reebtay ciyaarihii olimbikada sidaan uga qayb galnay iyo haddana ciyaarihii East Africa ka dhacay oo dhinaca basketka ma is leedahay isboortigii Soomaaliya sidii laga filayay u soo laabtay runtii horta sporti step fiican oo sameeyay very step oo sameeyay inkastoo oo stepkii loo baahnaa wili noo dhiman yahay steebkii sanadkii hore olimbikada ka qaybgalkii iyo sidii dadweynihii iyo dadkii isboortiga jeclaa ay ugu soo qaybgaleen laakiin isla markaasna uu ku soo xirmay xiriirka kubadda kolayga oo sameeyay steeb aad u wanaagsan oo maartay dadweynaha shucuurtoodii Soomaaliya dhan ay dib u soo celisay isboortiga basketballkana dib u soo noqday magaceena 26 sano ka hor meeshuu joogayna aan maanta soo celinay aan keenay marka insha Allah waxaan rajeynaa isboortiga everybody haddii support uu dhinac ka dhiibo in meesha aan rabna aan gaarino kaliya aan leeyahay
sidii aan basketballka aan heerkaas u gaarnay in event kasta atleticada insha allah ilaa brazil inay wax fiican noo keenaan maaragtay footballka in maaragtay dadka diasporaha fursad la siiyo hadday jiraan ciyaartooy aad u wanaagsan oo sidii basketballka oo maraykanka canada aan ka keenay north america in iyagana ay recover ahaan dadka dibadda qurbajooga ah la siiyo ciyaartooydoodii inay u ciyaaraan xulka qaranka waayo iyaga duruufaa keentay halkan hadduu joogi lahaa soomaaliya wuu ka ciyaari lahaa hadduu inta joogana waa inuu ka ciyaaraa marka taas waa ra'yigayga waxaa kaloo kala kulmay mister abubakar cali jimcaale bahda isboortiga UK khaasatan waxaa marti loogu yahay koonfurta magaalada London bal ka waran koobkan sida loo soo abaabulay iyo qaabka u socdo koobkan muddo dheer muusa qaadan in diyaarintiisa ilaa iyo ramadaankan ay ahayd waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa TV Universal gaar ahaan Cabdinaas adiga iyo dhammaan odayaasha oo aan ku martaqaadno oo noo yimaadeen sida gudoomiyaha xubin guddiga Olombikada Cabaan Rajab injineer Baana Shido Awaas iyo Maxamed Cali Weerow intaas oo halkii intaas ku kooban yahay waxaan rajaynayaa in tartankan uu noqdo mid joogto ah insha Allah taala asan kasta soo gashaan waa maasanta waxaa kaloo la kulmay injineer Baana Cali oo ka tirsan bahda isboortiga UK isla markaana ah xubin buuxda ka ah ururka FIBA oo ah Africa Basket injineer Baana runtii meel walba isboorti Soomaaliya loo qabto lagama waayo ka waran koobkan ay qabteen reer South London بسم الله الرحمن الرحيم زول مركو روك سلام لها ان runtii waxa weeye in saala socoto in waxaan joognaa in Streatham oo ah South London in wayna fiican tahay markaan oo kale in ay tahay bil Ramadaan ah in dhalinyarada Soomaaliyeed ayna koobka maartay in loo qabto ururka in SAD iyo kooxda Muqdisho runtii waa arin aad u fiican anaga waan ku cazumay runtii waan jecelnahay meel kasta Soomaali ay joogto ama isboortiga ha noqoto football ama basketball inaan ka qayb galno injineer waxaan rabaa inaan ku weydiiyo baarajab ayaan la hadlay isbedel weyn ayaa ku dhacay isboortiga Soomaaliya dhanka haddii loo fiiriyo Afrika waxaa tahay qofka xilligan aan joogno ma aragtay representative ugu ah dhanka Soomaaliya oo mar walba doonaya inuu soo xiro ku soo xiro Soomaaliya qalab ha noqoto advice ha noqoto marka shaqooyinkii ay qabanaysan dhanka Afrika halkay marayaan والله horta runtii xilkan ka hay Afrika waa mid runtii min shakhsiyad ah marka labaadna magaca Soomaali maartay inaan u matalo runtii sharaf ay tahay wali shaqadii baa wadnaa hadda guddi cusub ayaa la sameeyay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in dhammaan guddiga oo dhan ay yihiin dad aniga aan garanayo shakhsi aan u garanayo marka insha Allah meeshii waqti wada doona baarajabna waa sheekaysanay insha Allah focus waa sheekaysanay marka insha Allah hawsha waa wada doonaa daawadayaal waxaa kaloo kula kulmay legend Soomaaliyeed u soo ciyaaray MBC gaadiidka iyo horseed Awees Sheekh Cumar oo loo yaqaano Awees Weyne markuu ugu horeysay Ramadaan Kariim Ciid Mubaarak ka waran ciyaarahan ka socda koonfurta magaalada London wallahi ciyaarahan waxay ahayd ciyaar horta loo baahan yahay oo in sanad kasta la qabto sida loo arko ciyaartooy wanaagsan oo wadanka bari wax u qadar xilligii Soomaaliya gaadiidka MBC iyo horseed iyo qaabka hadda ay dhalinyaradan oo qurbaha u ciyaarayaan maxay isleedahay ay kala duwan yihiin wallahi horta dadkan hadda inta ka ciyaara fursad weyn ay haystaan ay wax ku ciyaaraan maxaa dhacay garoomo fiican ay haystaan ay mataqaanaa hawo fiican annaga laakiin fursadaas annaga horta ma helin laakiin ayaga waxa la rabaa inay ka faa'iideystaan waqti xaadirkan ciyaaryahanadii horseed sida Saciid Ceerow Maxamed Ismaaciil iyo adiga koonfurta London ay soo tagteen wax u jiraan wallahi nimo nasiibkiisu waaye waxa weeye mataqaanaa annaga nasiibaan u yeelanay in hal meel mataqaanaa aan wada degno saas awgees nasiibkeena u yeelanay waxaan la taaganahay shakhsi aad ka taqaanaan University TV faqadada ciyaaraha Maxamed Cali Xaaji waa garsoore ee kubadda cagta ah Switzerland Talyaaniga wadanka Ingiriiska maanta wuxuu la joogaa xaafadda Streatham oo ku tala koonfurta ka waran jawiga ciyaarta iyo Ramadaanka Assalaamu calaykum Ramadaan Kariim ciyaarta aad ay u fiican tahay maamulkeeda waxaan u jeednaa dhalinyaro badan oo Soomaali oo aad iyo aad u firfircoon dadka soo qaban qaabiyeen waxa waaye waxay soo sameeyeen wax aad u fiican sababta xitaa waxaan soo xasuusanaynaa koobkii Ramadaanka oo Soomaaliya marka saaxiibkay gaagaale waxyaabaha uu sameeyay waa wax aad iyo aad aan ugu faraxsanahay Maxamed Cali South London waa markii ugu horeysay aan imaano kulli adii inta badan waa imaataa meelahan soo malayna laakiin waa markii ugu horeysay aan imaado runtii aad aan la dhacay waxaan islahayn Westiga iyo North kale wax ka socdaan laakiin South caadi ma ahan ilaa waxa badegan hadda Awees Weyne Saciid Ceerow Maxamed Ismaaciil لاعبين ترى meeshan degan
meeshaan wariile yar waay horta hore streeta maadaama qashid wariileyna suuqa xoolaan soo xasuusanaynaa marka maxamed ismaaciil siciid ceerow baadhe abukar cali jimcaale oo ciyaartooy isagana ahaan jiray dad waaweyn oo akhyaara odayaal waxaa joogaan oo sharadka taa khatar ku ahaayeen marka streetam waxa waaye waa wariile yar waay iminka waxaan la joogaa chairmanka kooxda muqdisho football club oo ka dhisan caasimadda waddanka UK Mr Jibriil Cali Salaad Jibriil marka ugu horeysa Ramadaan Kariim Ciid Mubaarak hambalyo qaabka u soo abaabusheen bal ka waran sanadkan waa sanadkii ugu horeeyay oo aad ku sameysaan koobka Ramadaanka sida loo soo abaabul waxay nooga sheeg ma sha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim koobkan waa koobkii Ramadaanka ugu horeeyay ee aan ka aasaasnay Streetham ما شاء الله si fiican ilaa hadda u socdaa waxaan ugu talagalnay inaan tusino bulshada caalamka kale oo UK in Streetham iyaduna ay tahay dad jiro qaban karaan koob ku qaban karaan South London waan ku faraxsanahay qaabku ilaa hadda u socdo annaga inta ugu badan Streetham iyo koonfurta London markaan maqalno Aydruus baan ugu soo dhacay Aydruus ma ka soo dhacay waxaan ka imaaday waxaan u maleyn jiray adduunyada dhamaadkeeda laakiin runtii sportiga si aan caadi ahaan uga socdaa koonfurta London ما شاء الله sideedaba waxaan jeclaa inaan u sheego idaacadda maanta Streetham waa xaafadda waa hoog sportska waxaan rajaynaynaa meelahan kale sida waqooyiga inay ku soo biishoon doonaan ilaaha diyaarad Streetham sida muuqata markii maalinta u dambeysay koobaan ka soo qaadnay Streetham aan keenay kana hadda waan qaadaynaa kuwa kale waan qaadan doonaa insha Allah taala daawadayaal waxaanu soo gaarnay qaybtii labaad ee barnaamijkan xiisaha leh ee ka dhacay koonfurta magaalada London kaasoo loogu talagalay South West Ramadan Cup ama koobka Ramadaanka oo ay sameeyeen bahda sportiga ee South London waxaa soo abaabulay Muqdisho Football Club iyo ururka shaqada waxbarashada Soomaaliyeed ee ka dhisan isla xaafadan waxay ugu talagaleen afur iyadoo la joogo maalmihii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan guddiga qabanqaabada koobkan waxay kala aheen ciyaaryahankii weynaa ee Horseed iyo qaranka Maxamed Ismaaciil ciyaaryahanka legend Abalisha Ahmed Cabdirasaaq Gaagaale Aydruus Muxuudiin iyo Sheekh Nuur Macalin iminka waxaan ku soo dhaweynayaa Aydruus iyo Abalisha si ay ugu soo dhaweeyaan marti sharafka kala timid magaalooyinka waddanka UK waxa weeye ciyaartan waxa ugu talagalnay bisha Ramadaan ee barakeysan 8 kooxood oo runtii ay maantana ay gabagabadii ay ahayd runtii ay ku guuleysatay magaalada ciyaartooydii deganaa Streetham marka waxa farxad weyn ii ah laacibiin waaweyn reer qaran ka soo qayb galeen mas'uuliyiin sare oo ay kamid yihiin Rabbi Rajab oo macaankii qaranka ahaa engineer Baane runtii asagana kamid ahaa Bilimad Bacadda gudoomiye Cabdidayg iyo rag kale weerow iyo rag kale hadda iyo bariiq iyo dad kale halkan ku soo koobi karin waxa kale oo mahad u celinaa aways oo kamid ah ciyaartooydii Soomaaliya bidix iyo garabkay midig joogi jiray runtii South Westiga waxaan ugu baranay runtii ciyaartooyda oo maanta quality fiican leh dhowr marna aan isku dayay insha Allah waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan bulshada degan Streetham iyo nawaaxigeeda oo ay gacan nagu siiyeen maanta wixii ka dambeeyay waxaan isku dayaynaa in ciyaaraha maanta wixii ka dambeeyay bil kasta oo Ramadaan ah halkan ku qabanay ciyaar kasta aduu Ilaahay raali ka dhigo waa kulli aad u mahadsantiin martida sharafta leh waxaan aad ugu mahad celinayaa kooxihii 8 kooxood oo dheeshay meeshaan dheeshay iyagana amaan gooni macnaha u dirana insha Allah iyo dhammaan guddigii qabanqaabiyay oo kamid yahay Cabdirasaaq Gaagaale oo asigana runtii aad iyo aad maartay arintan ugu dhaba areegay iyo aniga iyo Abalisha Maxamed Ismaaciil iyo ninka kale asigana noo joogo Sheekh Nuur runtii dadaal aad u fiican oo la qabteen marka insha Allah ciyaaraan ina ciyaaro ka fiican ina qaban doono insha Allah hadii la yiraahdo sanadka dambe Ramadaan Kariim dhamaantiin iyo ciid wanaagsan ma sha Allah waan markii noogu horeysay oo tournament ku qabanay magaalada tan London gaar ahaan xaafadda Streetham waan ku faraxsanahay inaan dhalinyarada isugu keeno tournamentiyada khaasatan xaafadan magaalada tan London waxa degan dhalinyarada markii loo reer London kubadda rag ugu fiican soo kale waxa ka xusi karnaa rag macallimiinta ah sida Maxamed Ismaaciil Abalisha iyo rag kale badan oo magaalada jooga markii magaalada dadka sportiga u saaxiib oo degan yahay waa in mar walba sportigeeda oo top noqda waa in mar walba dhalinyarada lagu gubaabiyaa footballka maxaa yeelay footballka wax badan ay ka reebaysaa dhalinyarada markay challenge helaan markay koob helaan nin walba waxa galaya hami ah inuu mataqaanaa kubadda ciyaaro marka dhalinyarada marti sharafta ka soo qayb gashay waa ku soo dhaweynaynaa magaalada London oo ah saldhigga sportiga xaafadda Streetham
iyo dhammaan wixii nagala soo qayb galay maxamed ismaaciil waa naga maqan yahay caawa waa ka xunnahay asagana insha allah waxaan u rajaynaynaa caafimaad dheer iyo inuu noo soo laabto insha allah waxaan rajaynaynaa sanadka dambena tournamenti kana hadda qabanay kasii awood badan oo ilaa kooxo badan kasoo qayb galayaan oo magaalada London meel walba ka dhisan inaan insha allah ku qabanno dabadeel saa la socotaan koobkii South West Ramadan Cup waxaa ku guuleystay isla kooxda xaafadan ka dhisan ee Streatham ciyaaro aad u xiiso badan ayaa dhacay sidii aad ku daawateen barnaamijka waxaana caawa lagu sameynayaa afur saa ku aragtaan maqaaxid aad u weyn oo ku taala South London ama koonfurta magaalada London oo la yiraahdo Maida Somali Restaurant iminka waxaan ku soo dhaweynayaa marti sharaftii kale ee ka kala timid dalka dibaddiisa iyo gudaha waxaan ugu horeyn doonaa macalinka iyo legend basketball macalin Barajab bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Cumar Cabdulqaadir Barajab xubin ka mid ah guddiga Olympic Soomaaliya isla markaasna ah macalinka xulka qaranka kubadda kolayga waxaan aad ugu faraxsanahay caawa anoo maanta aan la kulmay oon maaragtay imid ciyaartii finalka ahaa ee ka dhacay tartankii ramadaanka oo munaasabadaas lagu casumay aad waxaan ugu faraxsanahay maanta anoo ka qayb galayo anoo ah nin ciyaartooy kubad kolayg aan ahayn kubadda cagta laakiin aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo tartan kubadda cag oo aan runtii aan fursaddan aan rabo inaan ka faa'iidaysto wixii aaraa iyo ra'yi aan ka qabo maaragtay isboortiga Soomaaliya aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii waxaan fiirsanay ciyaar aad u wanaagsan guushii qolada ku raacdayna waxaan halkan ugu soo jeedinayaa hambalyo aan leeyahay meeshiina ka wada sanadka dambena insha Allah inaad positionkiina celisaan kuwii laga badiyna sanadka dambe inay isku dayaan sidii ay maaragtay koobka sanadka dambe ay u qaadaan runtii aad waxaan ugu faraxsanahay maaragtay anoo maanta sanadkan sanadkiisii aan joogay magaalada Ingiriiska ciyaarihii Olombikada maantana aan ku soo noqday waqtigiisa runtii waxyaalo badan ayaa isbedelay waxaa jiri jiray markii hore arrimo badan maanta wixii dhan waa xalismeen maaragtay everything Soomaali waxaa moodaa in gacan leesla gashtay oo runtii qof waliba uu leeyahay hal saamaxo hal cafiyo taas waa waxa meesha aan ku gaari karno aniga halkan waxaan rabaa inaan ka soo jeediyo dhinaca kubadda cagta in ay qayb weyn ay ka qaataan reer Ingiriis sababtu waxa waaye stepka anoo ku hadlaya magaca xiriirkan aan dhihnay anoo ku hadlaya magaca xulka qaranka Soomaaliya anoo macalinka xulka qaranka Soomaaliya kubadda kolayga step waxaan qaadnay runtii aad u wanaagsan oo ka qaybgalkii sidii dadka dhan ay og yihiin aan ka qayb galnay ciyaarihii Africa Zone 5 ee Tanzania runtiina guul fiican iyo magac iyo sumcad Soomaaliya ugu dambeysay ilaa iyo 26 sano ka hor maaragtay in sidaan oo kale ay Soomaaliya soo noqoto magaceeda aan soo celinay maaragtay xubintii weyneed ee maaragtay dhinaca Zone 5 meesheeda aan ku soo celinay taasna waxay ku timid waxa waaye xiriirka kubadda kolayga oo gacan weyn ama gacanta qabsaday in dadka qurba jooga ay wax la qabtaan magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdikariin Naasir Saciid Seef Cabdidheeg xildhibaan hore u ahaan jiray wasiir isboorti hore u soo qabtay wasaaradda isboortiga haddana afhayeenka olombikada Soomaaliyeed waxaa sharaf weyn ii ah bahaweynta isboortiga iyo dadkii soo qaban qaabiyey koobkan ramadaanka ee South West London ciyaartii finaalaha aan ka soo qayb galnay aan fursad u helnay oo nagu casumay guddiga maamulayeen ay nagu casumeen ciyaar aad u wanaagsan ayaanu daawanay hidadiilo weyn ayay igelisay 8 kooxood oo ku dhammaatay discipliin iyo asluub iyo ciyaar wanaagsan waxaan leeyahay mabruuk kooxda Streatham oo ayadana xabalyo aan rabo halkan inaan uga jeediyo waxaan leeyahay qoladii kale oo laga badiyeyna ayagana insha Allah sanadka dambe ayay guusha gaari doonaan waxaan tala ku darsan lahaa
mahad ayaan u celinayaa guddigii iyo odayaashii iyo dadkii soo qabanqaabiyey khaasatan labadii urur. Waxaan kaloo halkan ka salaamayaa ninkii lajanka ahaa maxamed ismaaciil asagana oo ku jiray odayaashan wax soo qabanqaabiyey. waxaa loo baahan yahay cayaaraha ramadaan keliya inaysan ku ekaanin si aan uga faa'iidaysanno dhallinyarada looga hortago dhibaatooyinka sida daraagiska, dagaalka, qabyaaladda, waxaasoo dhan faa'iido weyn ayuu isboortiga u keenayaa, una soo jeeda isu imaatinkaas iyo isku gudbintaas. magacayga waxaa la yidhahdaa injineer baana cabdalla cali. waxaan ahay xubin ka mid ah xiriirka badda koleyga ee qaaradda afrika. waxaan ahay guddoomiyaha zoonka shanaad oo qaabilsan qaybta marketinka. runtii waxaan aad iyo aad halkaan rabaa inaan ugu mahad celiyo dhammaan dadkii soo qabanqaabiyey cayaaraha maanta halkaan ka dhacay Streatham, khaasatan Abaliisha iyo Ceedrus. waxaan kaloo dhammaan salaan soo jeedin lahaa dhammaan ciyaartoydii iyo dadkii ka soo qayb galay barnaamijkan. sida uu sheegay walaalkayga Sayf Cabdidheeg, waa markii ugu horeysay oo aan ka soo qayb galo barnaamij ay sameeyeen baaweynta South Streatham. runtii taas waxaa keentay dhowr jeer ayay macnaha i cazumeen, laakiin ama waddanka waa ka maqnaa ama waxaan u waayay fursad. sida aniga aan la soconno cayaaraha kubadda cagta maanta runtii waxay ahayd cayaar aad u wanaagsan. runtii sida baarajib uu sheegana waa loo baahan yahay in ciyaartooyda dhalinyarada lagu dhiirigeliyo kubadda cagta. waxaan leeyahay ciid wanaagsan iyo ramadaanka oo aan sagootinayna maanta. meesha hadal baan igama furno mar haddii ay hadleen xubin olombikada, afhayeenka olombikada maxaa injineer baane. waxay la tahay inaan hadal baan meesha ka furnayn. anigu xaafad ahaan ka oday ahaan waxaan mar labaad idinku soo dhaweynayaa idinkoo waktigiini qaaliga usoo horay webigan noo dhexeeyana soo gudo markii u horeysa sidaad sheegaysaan. waxaan isku daynaa marar badan oo intaa ka fara badan inaad noo imaan doontaan insha allahu tacaala. horena waa u sameynay tournament noocaana, odayaashu waa maqan yihiin. hadda kahor inoo sheegay yimid sida axmed nuur, muxuu ahaa ambassador caalin, soo marey cunaay, dad noocaas hore noogu imaan jira. laakiin maanta dadka waxaan haynaa dadka shaqada hawsha faraha kula jira. waa ku mahadsantihiin mar labaad imaatinka aad noo timaadeen, waana idinku soo dhaweynayaan, waana mahadsantihiin. waxaan salaan iyo mahadnaq u soo jeedinayaa dadkii abaabulay xafladdan ku saabsan isboortigii ayaamahan ka socday xaafadda Streatham. waxaan kaloo soo dhaweynaynaa odayaasha ka yimid xaafadaha kale ee aad iyo aad ugu shuqlan sportska Soomaaliyeed ee arrimaha yani dibadaha, sida raggan aad u jeedaan ee odayaasha ay meesha fadhiya. anigu waxaan ka mid ahay odayaasha xaafadda Streatham, sida Abu Korba u sheegay. ulajeedada keliya oon leeyahay waxaa weeye inaan meeshan odayaasha ku soo dhaweyno aadka qaaliga u ah ee isku shuqlay sportska Soomaaliyeed sida dibadaha ay uga hirgeli lahaayeen, iyo dhallinyarada aan wax allaala waxay ku qaataan ama lacag ama wax kale ay jirin ee raba inay hobby u ah sportskaas inay sii wadaan si ay uga qayb galaan dhallinyarada kale ee caalamka ee gelaysa sportska seeriyada caalamka. marka ayagana waa u hambalyeynaya dhallinyaradaas, odayaashana waa soo dhaweynaa. annaga waxa kaliya nooga furan meesha waxaa weeye markii ay dhallinyaradu wax qabato, odayaasha sportskuna ay meesha aad iyo aad u hogaamiyaan, inaan u mahad celinno oon u sheegno waxyaalaha ay qabteen ee wanaagsan. magacayga waa Bila Cali Xamaali, Bila Madbacya la yiraahdaa. waxaan ka mid ahaa ciyaartooyda, waxaan ahaan jiray ciyaartooydii hore ee barismaadkii xilliyadii ciyaari jiray kooxda madbacadda iyo qarankaba. haddana kolley waxaan ahaa inta badan dadkiina way yaqaanaan maaragtay cayaaraha Sweden ama maaragtay North America, maaragtay xagga tiknikada farsamada ninka hadda u joogaan ahay. runtii horta marka hore waxaan halkan uga mahad celinayaa maanta oo maalin Ramadaan dhallinyaradii maaragtay soo qaban qaabaysay barnaamijkan quruxda badan leh cayaarahan tournamentigan ka dhacay magaaladan South Westiga khaasatan Streatham.
aad iyo aad aan ugu mahadcelinaya maxaa yeelay waa loo baahan yahay in maaragtay bisha ramadaan xoogaa bara la isku mashquuliyo maadaama xoogaa bil adag ay tahay waana dhalinyaro aad iyo aad u firfircoon mar haddaan arkayo maaragtay gaagaal iyo caydaruus iyo maaragtay haddaan arkayo dhalinyarada runtii waan ogahay maantana waxaan horta aan rabaa maaragtay aan maqlay maadaama aan imaanin dhowr jeer maxamed ismaaciil saaxiibka uu sheegay hadda ka maqan cayaarahan inaanan imaanin laakiin dhowr jeerna ugu yiri maxamed ismaaciil ka soo qayb gal cayaaraha laakiin duruuf jirta awgeed inuu imaa waayey horta waxaan leeyahay hambalyo kooxda Streatham koobka maanta ay qaaday saan maqlayay runtii Streatham ma aha maaragtay markii ugu horreysay maxaa yeelay cayaarihii maaragtay siraada 2011 ayaga ku guuleystay maaragtay sanadan hadda bishan bilii hore sanadan horaanteedana maaragtay cayaarihii odayaasha ayayba qaadeen markii Streatham waxaan leeyahay maaragtay wayba soo jeesteen maalmahan waxaan rabaa inaan mahad gaar u soo jeediyo marka ugu horeyso maxamed ismaaciil oo hadda naga maqan iyo saaxiibkan abaliisha oo runtii la'aantood aysan koobkan uu suurta gali lahayn inuu dhaco marka labaad waxaan rabaa si gaar inaan ugu hambaliyeeyo uguna mahadnaqo 8 kooxood ee naga soo qayb gasho koobkan ay ka mid yihiin halgan oo fadhiso Soomaali Eagles Muqdisho Roehampton FC Stockwell FC Banaadir iyo Al Hijra oo Streatham ah koobkan waxaan rabaa inaan idin sheego waa koobkii ugu horeeyay oo Ramadaanka Streatham lagu dhigo fikradiisa markii runta la sheego waxa iska lahay ninkaas la yiraahdo Gurey oo xagga fadhiyo iyo Qaalid waxa si fiican isugu soo dabariday oo la'aanta ay sadacaan ninkan Ciidruus la yiraahdo saaxiibkii Xaji Malaha haduu joogo Sheekh Maxamuud oo aqaan aniga inuu fadhiin kale ma aqaano asagana qayb ilbaxlu ka geystay anigoo magacayga liir Cabdirsaqa Gaale una hadlay jaaliyada Streatham degan qayb ilbaxal aan ka geystay waxaan u sheegaynaa dadweynaha naga fiirsanaya telefishinka caalamiga Universal inaan insha Allah taala kii ugu horeeyay uu yahay qaladaad badan aan ugu dhacay laakiin insha Allah taala waa sixi doona sanad dambe waan la weyn doona insha Allah taala waa salaamantiin kulli bahda isboortiga guddiga xildhibaanada ciyaartooyda كل هذا وما سنتين إيوه تي هذا يونيفرسال إيوه رويال هذا وما سنتين هذا كله بأنت عياره وحان في سنة هذا في عن أو هذا قروح بدن أو استراحة مولي كذا أنا كده عين حرجين إن سنة كدمنا إن متكسي في عن أنسي داونا دولايرة وحان هم بالي وسي جدينا يا حو ما هذا علم تتكسوق من قوي عبد الرزاق قال محمد إسماعيل محمد بليشة عيدروس شيخ نور هذا ما سنتين وعنا كان كسلام أنا مرتين ماشي نقول سوق بقش اللبان كقدوميها معلم كباسكت قارنك اللبان قدومية معلم بلا برق ويرو هذا وسلامتين حرجين أنا السنة كان سنة كحجنا إنا سان سكف عن سوق إيمان دو الله ودي لو قلاده قرأ إذا رجينا كل جينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتنا غيرتين حفلتنا كسوق بقش أما tartankan ramadaanka xafladda lagu soo gunaanada ka soo qaybgashay aad ayaan idin salaamaya marka labaad waxaan jeclaan lahaa inaan si gooni u salaamo guddigii qabanqaabada cayaarahan Ramadan Cup ee Streatham dadkii qabanqaabay oo walow aanan cayaartii finalka aan ka soo qayb gelin naqatay inaan waxoogaa yar ka soo daaho haddana waan ka tacsiyeynaya marka waxaan jeclaan lahaa inaan aad horto marka hore ayaga mahad gooni aan u celiyo midda labaad waan jeclaan lahaa xoogaa yar inaan wax badan ku daro laakiin si waqtiga noo saamaxayni marka dhamaantiina waa idin salaamay daawadayaal ugu dambeyntii waxaa la qaybiyey shahaado sharaf kuwaasoo ah certificate of appreciation taasoo loogu talagalay marti sharaftii cayaaryahanadii iyo dadkii kale ee ka soo qayb galay koobka Southwest Ramadan Cup ee lagu qabtay xaafadda Streatham oo ku taala koonfurta magaalada caasimadda UK For the better, hope for the better.
waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta inaan kasoo qayb galno annagoo ka soconno tv-ga caalamiga ah Universal TV gaar ahaan barnaamijka faaqidaada ciyaaraha maanta runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay 8 kooxood ee Ramadaan Cup-ka lagu qabtay Streatham maanta inuu halkan ku dhamaado runtii waxaan u mahad celinaynaa dhalinyaradii iyo odayaashii isboortiga maamus iyo magac weyn ku lahaa sharaf ku lahaa sida Maxamed Ismaaciil Abaliisha baadhe Saciid Ceyrow iyo intii kale oo burci oo mar dambe yimid runtii intaasoo idil oo ah dad aad iyo aad isboortiga magac iyo sharaf ku lahaa maanta ay soo qaban qaabiyeen iyo Cayduruus gaagaale runtii dadaalkii faraha badnaa ay sameeyeen runtii waa lagu guuleystay maanta inkastoo aysan caan ku ahayn maanta reer Streatham aan u sheegahay maanta inay maanta u horeysa maalintii ay tahay aad xafladooda maanta loogu soo qayb galay inay ka qayb qaataan isboortiga qaybaha weliba koobka aad u faraha badan leh ee laga qayb qaatay magaalada London runtii aad u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa dhammaan guddiga Olombikada waxaan u mahad celinayaa Baarajab Cabdileek Baana Bila Cali xildhibaanka Shudo Maxamed Cali Weerow iyo dhammaan odayaashii jooga halkan iyo Bila Cali iyo Aweys Weyne dhammaan kulli waxaan dhigaa Abuukar ma soo koobi karo runtii dad aad iyo aad sharaf ku leh isboortiga Soomaaliyeed maanta ayaa hortiina maanta ka muuqda aad arkaysaan runtii waxaan dhihi karnaa waa meel aan loogu kala harin runtii Streatham waxaan u sheegaa reer Streatham waa markii ugu horeysa aan malaynayaa maanta inaad qayb weyn ka qaadateen inaad ka qayb qaadataan koobkan Ramadaanka oo la soo gabagabeeyay iyo ciidaba runtii ciid wanaagsan waa leeyahay runtii dhammaan waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan idin leeyahay runtii dadaalkiina halkiina ka sii wada kooxdii koobka qaaday ee Streathamna waa u mahad celinayaa runtii waxaan hilmaami karin maqaayadan cashada wanaagsan iyo afurka noo diyaarisay mayda la yiraahdo runtii oo bartamaha taanka ku taala Streatham runtii aad iyo aad ayadana u mahadsan yihiin aad ayaad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa cabdulqaadir maxamed faarax biriq madaxa sportiga University TV barnaamijkeeni quruxda badnaa ee aan martida ugu ahayn kooxda SED iyo Muqdisho Football Club oo ka dhisan koonfurta magaalada London halkan ayaan ku dhamaynaa saa maqasheen Streatham waa hooyada sportiga waddanka UK Streatham waa beledweyn oo kale webiga u dhaxmaro inta badan lama yimaado dhankan laakiin hadda waxaad ogaateen in ay tahay magaalo aan loo geli karin siduu gagaal sheegay 1991 dadka intooda badan waddanka ma joogin laakiin kooxo ayaa ka dhisnaa koob ayay qaadeen marka waxaan leenahay Streatham hambalyo insha Allah faaqidaada ciyaaraha University TV mustaqbalka waa idin iman doonaan mar walba ilaahay haduu yiraahdo barnaamijka sha la socotaan waxaa la sameeyay xilliga Ramadaanka maalmihii ugu dambeeyay xilligan uu baxayo waxa lagu jiraa soonfurka ayaa lagu jiraa saa awgeeda bisha Ramadaanka wax barnaamij kama jirin dhanka faaqidaada ciyaaraha marka taasna barnaamijka sidaas ayuu ku soconaya marka waxaan mahad gaar u celinayaa macalinka qaranka ciyaaryahan Umar Abdulqaadir Baarajab oo nooga yimid imaaraadka nooga yimid iyo waxaan mahad u celinayaa marti sharaftii kale ugu horeeyo afayeenka guddiga Olombikada Soomaaliyeed Mr. Cabdidheeg iyo marti sharafta ciyaaryahanada inta la fadhiya marka waxaan leenahay Streatham hambalyo barnaamijkan waxa soo qoray Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriq cameraman waxa ka ahaa Ali Naaji waxa soo saaray ka ahaa Jibriil Maxamed Jibriil iyo Cabdulqaadir Cabdiqani Maxamuud Bac anigoo Cabdinaasir Ismaaciil inta wada kulmi doona waxaan kaga tagayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh